بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا وركا جنال كينا حوكتا دالك قضبضا وركينا عاد كدا ودونتان وعاكم من نقدونا حدير ربي قدر آميسون وجواب عدك بحسي حضر لوان كسو يري أهل السنة إي حالة دقمد قرعيل أيان داوديال وركا كسو قادن دونا إي ودياش ليلة كسو eedeen u jeediyay madaxweynaha maamulka Puntland iyo sidoo kale Saciid Dani oo ciidamadii ugu badnaa waqtiga kan aruursanaya dhibaataynta leeg ayaa ka dhalan kara hadii uu deegaanka Galdogob oo dagaal uu ka bilowday aan daawadayaal warka janaalkeena xogta dalkeena kugu soo gudbin doonaa hadii rabbi qadaro daawada hadii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo like dheh share garay commentigaagana waa muhiim aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya odayaasha Leila Kase ayaa waxa ay si cad u sheegeen in degmada Galdogob ee gobolka Mudug gibi ahaanba ay gorgortan ay geli dooneen odayaasha Leila Kase ayaa waxa ay sheegeen in ay talaabo kasta ay qaadi doonaan ay noqonayso mid ay si gaar ah ay aad ugu fikirayso waxaana sidoo kalena ay u muuqataa in xaaladaha kala duwan ee hadda ay isbedelo kala duwan ay sameyn karaan waxaana sidoo kale ay sheegeen odayaasha Leila Kase in ay aad ay ula socdaan wax waliba oo taagan isla markaana xalka ay ugu weyn uu yahay in ay degmada Galdogob iyo sidoo kale deegaanada hoostaga gabi ahaan bay noqon doonaan maamulka madax banaan Saciid Dani sida ay sheegeen odayaashani kadib markii maamul looga dhawaaqay degmada Galdogob ayaa waxa hadda u muuqataa in maamulkan uu noqon karo mid saameyn fara badan dhali kara waxaana tani u muuqanaysaa in had iyo jeer xaalado kala duwan ay geli karaan qaybaha kala duwan ee shacabka degmada Galdogob dadka ku nool degmada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa waxa ay hadda u muuqataa in cabsidii ugu xumeyd ay hadda ay soo wajahayso maadaama Saciid Dani ciidamadii ugu badneed oo waqtiga kan u diyaarsanayo halkaasi isla markaana uu doonayo in dagaal uu kula wareego cid kasta oo ka soo horjeedana maamulkiisa uu talaabo uu ka qaado hase ahaatee maamulkani looga soo horjeedo Saciid Dani ee looga dhawaaqay degmada Galdogob ayaa waxa uu yahay mid saameyn fara badan dhalin kara inkastoo qaybaha kala duwan ee bulshada ee wax walba ay la socdaan oo ku aadan xaalado kala duwan ee waqtiga kan jiri kara tanina waxay sidoo kale noqonaysaa in maamulkan ay aad uga soo horjeedaan Saciid Dani maamulkan cusub ee looga dhawaaqay Puntland ayaa waxa uu noqon karaa mid dagaal gelin kara qaybo ka mid ah deegaanada Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay ku jireen jawi degan iyadoona madaxda maamulka Puntland ay hore u sheegeen in cid kasto caqabada ku ah maamulkaasi ay si gaar ah ay kaga hortagi doonaan laakiin arrimaha kala duwan ee waqtiga soo kordhaya ayaa waxay u muuqanayaan in xaalad cakiraansho ah ay geli karaan maamulka uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Dani Saciid Dani ayaa rajada ugu weyn uu leeyahay waxa ay tahay in doorashada madaxweynaha dalka uu ku guuleysto inkastoo hadda xaaladda jirta ay noqon karto mid dhibaato fara badan dhalin karta walow qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ay si gaar ah ula socdaan wax kasta sida ay noqon karaan iyo xaalad kasta meesha ay tagi karto hase ahaatee madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ciidamadii ugu badnaa ibad waqtiga kan diyaarsanaya isagoona doonaya inuu weerar ku qaado degmada Galdogob ee gobolka Mudug waxaana arrinkan ay noqon doontaa hadii degmada Galdogob oo weerar ku qaado Saciid Dani in dhibaato badan ay ka dhalan karto dagaalka ka dhaca qaybo ka mid ah degmada Galdogob waxaana tani ay noqonaysaa mid maalinta ka dambaysa ka sii daraysa iyadoona taasina ay noqonayso mid saameyn fara badan ku yeelanaysa bulshada qaybaheeda kala duwan bulshada degmada Galdogob ayaa waxay muujinayaan cabsitii ugu xumeed iyadoona hadda ay u muuqato in xaaladda cabsiyadeed ee waqtiga kan soo wajahaya qoysaska kala duwan ee ku nool degmadaasi ay aad u sii kordhi karto hase ahaatee talaabadan ayaa waxay u muuqan doontaa mid ay dhibaato badan ay ka dhaxli karaan shacabka iyadoona barakacii ugu dambeeyay halkaasi uu ka bilowday warar hoose aan helnay ayaa waxay sheegayaan in degmada Galdogob ay hadda ay ka jiraan barakac qaybihiisa kala duwan waxaana taasi u muuqanaysaa in arrimo kala duwan ay hadda dadku ay galayaan waxaana ay aad loo cambaareynaya in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani dhibaato kasta oo halkaasi ka dhacdo in uu ku lug yeelan karo hase ahaatee qof waliba oo indheeya xaaladaha siyaasadeed ee waqtiga kan jira
ayaa waxay u muuqanaysaa in ay il gaar ah ay ku hayso waxa kasoo cusboonaan kara degmada Galdogob ee gobolka Mudug waxaana arrinkani ay u muuqanaysaa in rajo qofka kasta uu ka lahaa in Puntland ay waji cusub ay u yeesho arrimaha doorashooyinka dalka haddana waxay hadda u muuqataa in wajiga sidii hore uu ka duwanaanayo maadaama odayaasha leelakase ay si gaar ah kaga soo horjeedaan siciidani dhinaca kalena taliska Amisom ayaa waxay war ka soo saareen hadal dhawaan ka soo yeeray maamulka Ahlu Sunna taliska Amisom ayaa beeniyay warar dhawaan ay si weyn la iskula dhaxmarayay oo ku aadan in ciidanka nabad ilaalinta howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ay qayb ka qaateen dagaalka dhawaan ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud war qoraalaha ka soo baxay taliska Amisom ayaa lagu beeniyay eedeynta kaga timid xoogaga Ahlu Sunna oo horey u sheegay in ciidanka nabad ilaalinta ay qayb ka ahaayeen dagaalka iyo sidoo kale garabsiinta maamulka Galmudug bayaankan ayaa sidoo kale Amisom ku sheegtay in marnaba aysan sina kaga qayb qaadan dagaalka hubeysnaa ee maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay qayb ka mid ah degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaana ay sheegeen taliska Amisom in ay wax ay ka warqabaan aysan jirin isla markaana dhibaato waqtigan aysan dooneynin in ay geystaan oo kaliya Soomaaliya u joogaan nabad ilaalin waxaana ay sheegeen taliska Amisom in ay tallaabo kasta ay qaadayaan ay noqonayso mid ay iyaga caqligooda ay ku xisaabtamayaan cid adeegsanaysan aysan jirin sida ay sheegeen taliska Amisom waxaa tani u muuqanaysaa in tallaabooyinka waaweyn ay hadda ay noqon karto mid ay si gaar ah ay Amisom ay u doonayso in ay wax waliba ay bedeli karaan taasina waxay ka mid tahay siyaabaha kala duwan ee qaybaha kala duwan ee si gaar ah kaga hadlayeen xaaladaha kala duwan ee Amisom ayaa waxaa la sheegay in hubkeeda ay si gaar ah ugu dagaalamayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxaana Amisom ay hadda si cad u tilmaamtay in wax hub ah ay dhiibtay aysan jirin isla markaana ay mar walba ay si gaar ah kaga feejignaanayso waxaana ay tilmaamtay in Soomaaliya in dagaal uu ka dhaco waqtigan ay diyaar u ahayn Amisom isla markaana ay la socdaan xaaladda guud ee Soomaaliya dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa waxaa soo wajahday cabsidii ugu xooganeed ebada Mareykanka ayaa waxaa hadda soo wajahay cabsi kadib markii gantaal aan marnaba la istaaji karin ay sameysatay dowladda Shiinaha ayaa waxay gantaalkani ay sheegtay in aysan ku dhibaateynin cidna isla markaana ay kaliya isku difaaci doonto gantaalada ay sameysanayso dowladda Shiinaha ayaa waxay yihiin kuwa baqdin aad u xoogan ku abuuraya dowladda dalka Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa horey waxay u sheegtay inay la socoto dhaqdhaqaaqa guud ee dowladda Shiinaha maadaama dowladda Shiinaha ee hadda ay tallaabo kasta ay ku tilmaamtay mid iyada u gaar ah isla markaana cid ay ka amar qaadato aysan jirin go'aankeedana uu yahay mid ay ku horumarinayso barnaamijkeeda barnaamijkan nuclearka ayaa waxa uu noqonayaa mid cabsidii ugu dambeysay ku beerayso dowladda Mareykanka ayaana tani waxay u muuqanaysaa in ay aad uga baqayso maadaama dalalka sida gaarka ah uga soo horjeedo xukuumadda Washington hanaan siyaasadeedkeeda ay si gaar ah u sameysanayaan gantaalo ridada dheer horey waxaa Kuuriyada Waqooyi u sameysatay gantaal plastic ah oo dhibaato badan sababi kara oo Mareykankana ay dhibaato wacan ay ku noqon karto si la mid ah dowladda Turkiga ayaa gantaalo kala duwan sameysatay sidoo kale diyaaradda Beerakhdar ayay sameysatay Russia sidoo kale Mareykanka ayaa waxaa hadda u muuqanaysaa in xulafadiisa iyo asiga ay carqalado kala duwan ay soo wajihi karaan maadaama siyaasadda Mareykanka hadda si gaar ah dalalka dunida looga soo kala horjeesanayo bilihiina soo dhaafay ayaa waxaa qayb ka mid ah wadamada caalamku ay si gaar ah ula socdeen gantaalada ay hadda ay sameynayso dowladda dalka Shiinaha madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa hore u sheegay in dowladdiisa ay horumar wanaagsan oo dhanka hubka ah ay sameynayso taasina waxay dhibarjab ay ku noqonaysaa dowladda dalka Mareykanka oo si gaar ah dagaal ugula jirto dowladda Shiinaha guud ahaan daawadayaal warkii aad ka daawaneyseen janaalkeena xogta dalka daawadayaal waa naga inta haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saaro like share garay commentigaagana waa muhiim waana ku mahadsan tahay daawashada warka janaalkeena xogta dalka